YouTube ma adko laakiin dadka badankood galadkan ayay sameeyaan oo dilo channelkooda waqti badanna ka lumiyo. laakiin haddii videogan ku soo gaaray nasiib ayaad leedahay. dadka qaar waxay u maleeyaan more videos more success. in videos badan la soo sameeyo ay ka dhigan tahay in channelkooda guuleysanayo ama ay guul ka gaari karaan. laakiin sidaas ma aha. I know waad aragtay dad kumanaan videos soo dhigay haddana boqolaal subscribers haysto. laakiin dadkaasi waxaa ka maqan sirtaan. marka aad hesho hal video oo shaqeeya, subscribers badan keeno, views badan keeno, videogaasa loogu eliyaa mar badan iyo all the time. halkii aad videogan shaqeeyay ka gudbi lahayd oo aad raadin lahayd video kale, id kale, meelo kale aad gudbi lahayd, videogan dhexdiisa lagu soo laabtaa. YouTube algorithmkana waxa uu jecel yahay repetition plus consistency. loomana baahno inaad noqoto qof soo gudbiyo random content. waxaa loo baahan yahay inaad noqoto qof known for something ah, qof shay ku aan ah. haddii hal formula shaqeeyo, formulagaas your entire life ha ka harin. waxaadna meeshaasi ka heli doontaa loyal audience. saaxiib, YouTube ma adko laakiin waxaa kaa maqan hal idea oo shaqeeyo oo channelkaagana bedelo. haddii aad nagu cusub tahayna soo subscribe garee. haddaa videogan waxa uun ka faa'iideyna like iyo waxyaabo adiga ku dhiirigelin karto. waa idin salaamaya dhammaantiina.